kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamid ah Ra'iisul Wasaare Rooble oo kulan lama filaan la qaatay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta xilli xiisada labada dal ay gaartay meeshii ugu xumeyd xogta waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah Ra'iisul Wasaare Rooble oo dhanka kale kulan duceed la yeeshay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qaaday tallaabo la xiriirta xuska 78 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaskii ururkii gobonimo u dirirka ahaa ee SYL arrin uu ku muujinayo madaxweyne Farmaajo mudnaanta ay leeyihiin dhalinyaradaas oo uu sameeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa wararkeena kalena waxaa kamid ah xiisad xooggan oo ka taagan magaalada Gaalkacyo iyo madaxweyne Qoorqoor oo magaaladaasi u jooga xalinta xiisadaasi ka dhalatay oday caan ka ahaa Gaalkacyo oo la dilay madaxweynaha Jubbaland oo kulan hadal hayn badan dhaliyay la qaatay taliyaha Mareykanka ee qaaradda Afrika xilli taliskan uu kol hore isaga baxay Soomaaliya haddaba muxuu Africom kala hadlay xilligan madaxweyne Axmed Madoobe wararkii ugu dambeeyay ee Yahuudda oo laba jibaartay duqeymaha marinka Gaza iyo maamulka Yahuudda oo madaafiic ku burburiyay xaruntii warbaahinta Al Jazeera ee Gaza qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana habeen sabti ah 15 bisha shanaad ee May sanadka 2021 barnaamijka wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawada ka qayb qaada dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyo saaxiibadiina idinka oo ku sheer gareynaya baraha bulshada mahadsanidin waxaynu ku bilaabaynaa daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Yahuudda oo laba jibaartay duqeymaha ay ka fulinayso marinka Gaza iyadoo tirada khasaarahana marba marka dambaysa uu sii kordhayo hadaba daawade waxaynu si wada jira markaasi idinkaga codsanaynaa in walaalaha reer Falastiin oo dhibaatada xooggan ay ku hayaan Yahuudda aynu si wada jira ugu dacayno in Allah subhanahu wa ta'ala dhibaatadaasi culus ay haysata walaalahaas muslimiinta ah ee reer Falastiin uu ka dulqaado iyadoo marba marka dambaysa la soo sheegayo xaalado aad u khatar badan oo Yahuudda ay u geysanayaan walaalaha dhiban ee reer Falastiin waxaynu eegaynaa xaaladihii ugu dambeeyay iyo waliba sidoo kale wararkii ugu dambeeyay madaafiicda ay Yahuudda ku garaacayaan marinka Gaza iyadoo la soo sheegayo dhimasho iyo waliba sidoo kale dhaawac militariga Israa'iil waxay xaqiijiyeen saacadii u dambeeyay in gantaalo ay ku garaaceen dhismo ku yaala Gaza oo ay deganaayeen warbaahinta Al Jazeera iyo AB bayaan ka soo baxay militariga oo la soo dhigay barta Twitter-ka ayaa lagu sheegay in dhismaha Gaza Tower uu yaalay agab military oo ay lahaayeen ururka Hamas sidaasina ay ku beegsadeen halkaasina ay ururkaasi gabaad ka dhiganayeen waxa la sheegay in daartii warbaahinadaasi dhulka la simay dhinaca kale dhismo ku yaala marinka Gaza oo ay deganaayeen dad markaasi Falastiin u dhashay ayaa sidoo kale madaafiic lagu garaacay waxa la sheegay in halkaasi qasaare kala duwan uu ka dhashay dhinaca kale dagaalyahanada Hamas ayaa iyaguna tiro gantaalaha waxa ay ku rideen magaalooyinka Israa'iil waxaana ku dhintay weerarkaas nin ku sugnaa deegaan dhaca bariga magaalada Tel Aviv ee maamulka Yahuudda weerarkan ayaa waxa uu ahaa mid ay uga argoosanayaan Hamas duqeymo ay saacadii la soo dhaafay Israa'iil ka geysatay xero qaxooti oo ku taala Gaza saraakiisha Falastiin waxa ay sheegeen in duqeyntaas ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof oo ay ka mid yihiin caruur aad u yar iyo qof dumar ah militariga Israa'iil waxay sheegeen inay beegsadeen dhismo ay deganaayeen dagaalyahanada Hamas waxa la soo sheegayaa in tirada dhimashada marba marka dambaysa ay si laba jibaarmayso oo walaalaha reer Falastiin dhibaato xoog leh ay wajahayaan hadaba daawade mar kale waxaan ka codsanaynaa inagoo wada jirna in aynu u wada duceyno walaalaha reer Falastiin ee dhibaatada xooggan ay ku hayaan maamulka Yahuudda ilaahayna dhibka iyo markaasi gumaadka ay ku hayaan Yahuudda Allah ka dulqaado walaalahaas reer Falastiin ayaynu leenahay markaana qaybaha kale ee wararkeena Soomaalida Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu kulan lama filaan la qaatay maanta madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta xilli xiisada labada dal ay gaartay meeshii ugu xumayd Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo maanta ka qayb galay xafladda caleemasaarka madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu kulan lama filaan la qaatay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxa ay ka wada hadleen
arrimo quseeya sida xogaha gaarka aynu ku helayno Soomaaliya iyadoo xusid mudan tahay in xukuumadaha Nairobi iyo Muqdisho xiriirkooda uusan wanaagsaneyn iyadoo dhawaan la soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed haddana Kenya ayaa ka sii dartay kadib markii ay joojisay duulimaadyadii Soomaaliya tagi jiray iyo kuwii uga imaan jirayba ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu kulankiisan gaarka ah kula wadaagay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta sida dowladda federaalka ee Soomaaliya ay uga go'an tahay in la wanaajiyo xiriirka ay la leedahay dowladda Kenya oo ah dowlad markaasi daris la ah Soomaaliya ra'iisul wasaaruhu waxa uu gudbiyay doorka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ka ciyaari karto in la sii hagaajiyo xiriirka labada dal u dhaxeeya dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble iyo wafdiga hogaaminayo ayaa waxa ay kulan ducaadyo la qaateen qaar kamid ah hogaamiyaasha iyo diblomaasiyiinta ka soo qayb galay xafladda waxa ayna kala hadleen danaha wadajirka ah ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo dalalkaasi wafdiga ra'iisul wasaaraha ka qayb galay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Djibouti waxa kamid ah wasiirka waa wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba sidoo kale siyaasiyiin kale oo ka socday safaaradda Djibouti Soomaaliya si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare Roble ayaa kulanka u la qaatay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta shaki badan laga muujinayaa maadaama Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda uusan wanaagsaneyn geesta kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi sawirro laga soo qaaday ra'iisul wasaare Roble iyo markaasi madaxweyne Muuse Biixi ayaa waxay muujinayeen iyagoo ismarxabeynaya sidoo kale isgacan qaadaya waxaana la sheegay in ay sidoo kale ka wada hadleen arrimo la xiriira qadiyadda Soomaaliya iyo Somaliland horey warar soo baxay oo aynu idinkula wadaagnay ayaa waxay tilmaamayeen in dowladda Qatar ay Muuse Biixi ka dalbatay in uu wada hadal la yeesho amaba wada hadal uu la furo dowladda Soomaaliya taasina ay dhexdhexaadiso dowladda Qatar balse Muuse Biixi ayaa waxa uu sheegay Qatar in isagu uu doonayo in marka ay degto xasaradaha ka dhashay doorashooyinka Soomaaliya uu wada hadal la yeesho dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kulankan uu la qaatay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble Muuse Biixi ayaa waxa lagu tilmaamay inuu yahay mid markaasi geesinimo leh oo taariikhi ah maadaama Muuse Biixi iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aysan isku wanaagsaneyn oo horey dowladda markaasi Soomaaliya ay u dhaliileen siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland oo ugu horeeyo madaxweynahooda waa hagaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaa la socotaan warqad TV-na waad naga daawanaysaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo weyneynaya doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee xurriyadda midnimada iyo dowlad dhiska dalkeena ayaa ubax dhigay taalada halgamayaasha SYL oo udub dhig u ah halgankii dadka Soomaaliyeed ay isaga dulqaadeen heeryadii gumaysiga madaxweynaha ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu hambaliyeeyay munaasabadda 15 May oo ku beegan 78 guuradii aas-aaska golihii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL isagoo oo muujiyay qiimaha weyn ee maalintan ay u leedahay ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyadoo ciidamada Pambeyda ay markaasi ku maamuusayeen heesta calanka iyo astaanta qaranka sidoo kale madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa taalada halgamayaasha SYL waxa uu xus iyo duco u sameeyay ama ugu sameeyay dhalinyaradii 13 ahaa ee horseeday xornimada iyo midnimada dalkeena Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan waxa uu ku guubaabiyay in ay ilaashadaan taariikhdooda gobonimo doonka ah oo astaan u ah geesinimada go'aanka adeega ah iyo kartida ummadda Soomaaliyeed munaasabadda ubax dhigga taalada SYL waxa ka qayb galay madaxweynuhu sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish ku xigeenadiisa wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyo dhalinyaro ka kala socotay 17 degmo ee gobolka Banaadir arintan ayaana mar waliba 15 May la weyneeyaa maadaama SYL ay yihiin dadkii u soo halgamay in Soomaaliya ay xor noqoto ugu dambeyntiina xiisad xoogan ayaa waxay ka taagan tahay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug iyadoo madaxweynaha maamulka Galmudugna uu halkaasi gaaray si xiisadaasi uu u qaboojiyo xiisadan waxa ay ka dhalatay dil talaadadii la soo dhaafay oo 11 bisha ay ahayd magaalada Gaalkacyo loogu geystay sheekh caan ka ahaa halkaasi oo lagu magacaabi jiray Sheekh Cali Dheere sheekha la dilay
ayaa waxaa markii hore laga afduubtay gurigiisa oo ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo, waxaana markii dambe meedkiisa oo si xun loo dilay la soo dhigay meel 15 kilomitir u jirta halkii markii hore laga afduubtay. Sheekha la dilay ayaa ahaa qof ka shaqeeya howlaha samafalka, gaar ahaan u gargaaridda ilmaha agoonta ah. Arintani ayaa waxa ay cabasho xoog leh ku abuurtay dadka deegaanka, gaar ahaan dadka ka soo jeeda magaalada Gaalkacyo ee dhinaca koonfurta, waxaana maalmihii la soo dhaafay halkaasi ka jiray banaanbaxyo kala duwan oo dadku ay dhigayeen. meydka Allah u naxariistay Sheekh Cali Dheere ayaa maanta ugu dambeyntii lagu tukaday, waxaana halkaasi gaaray madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor, isaga oo meydka wax uga tukaday. waxa uu dadka ku qanciyay in markaasi baaritaan dhaba maamulkiisu uu sameyn doono, isla markaana gacanta lagu soo dhigi doono dadka lagu eedeynayo in arintaasi ay ka dambeeyeen. Hay'adda CID-da iyo guddiga amniga gobolka Mudug ayaa sheekha waxay ku eedeeyeen inuu xiriir la leeyahay Al-Shabaab, waxaana markii ugu dambeysay laga qaaday telefoon la sheegay inuu sheekha u isticmaali jiray lacagaha uu siiyo ilmaha agoonta ah ee uu caawiyo. balse ugu dambeyntii haatan waa la aasay, waxaana madaxweynaha Galmudug Qoorqoor u ballan qaaday in markaasi natiijo wax ku ool ah laga keeni doono baaritaanka lagu sameynayo dilkan loo geystay sheekhan caanka ka ahaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkan war lamid ah, intaynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.